Welcome guys, alla soo dhawaada adeer alxamdulillah astaghfirullah. Alla soo dhawaado, alla soo dhawaado. Mabuto Seseko, soo dhawow saaxiib. Codka ma la maqlaa? Codka ma la maqlaa? أحمد عثمان مها هلو محمد صالح وعليكم السلام ما شاء الله لسود ودادير الحمد لله عودك كي هدي لمقلا ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايدي السلام دمان كي مقعيقا كسيس يا كي ويجيقا كسيس كل واسلام أدير الحمد لله استغفر الله إلهي هنغانيقا دادك وحا وناكسن إسو شيء أدير الحمد لله دادك وحا حنا إساقديقا الله هنغانيقا أدير هدي أنك دادك حن أنك كعبسن أو أنك كعامسن أو في النوليالك oo fidnada nala daba taagan oo nolosheena wanaageeda dhibaysa dumarkeena wanaagooda dhiba oo cafiifaadka anaga dhibaysa annagana in annaga ka aamusno oo annaga ka cabsana waxa ka dhigan tahay in ayaga xaq ku hadlaayaan adeer xaqiba ayaga xigsana adeer alxamdulillah astaghfirullah hadii laga aamuso dadka xaq darrada ku socda adeer dadka xaq yaqaan hadii aamusaan oo cilmi iyo wax walba iyo aqliga laha hadii la aamusaan adeer dadka xawayaamiinta oo doqomiinta oo sida cawaanta camal oo wayaakuluna kama taakulul an'aam la dhahay camal oo fidnoolayaalka oo munaafiqiinta oo noo eg adeer oo kula shahaadana oo Soomaaliga kugula hadlaa intaas dhana waxa isu maleynayaan in xaq ku taagan yihiin adeer maxaa yeelay waa laga aamusay adeer alxamdulillah waa laga aamusay adeer marka aniga hadii aniga dhah nafsadeyda kaliya ilaahay soo kor saare kullu nafsin bima kasabat rahina la dhahe hadii ani teeyda la taagnaada adeer hadii aniga tayda kali in aniga la taagnaado adduunkan adinka arkaysaan anaga dad islaam hadii anaga nahay rasuulkeena naloo soo diray Muhammad sallallahu alayhi wa sallam calaamad u taagana nahay adeer asagana khayr khalqillaahi adduunka dhana loo soo diray nafsadiisa kali looma soo dirin adeer alxamdulillah asaga dadka asaga ka tagaanahay booskiisa joogna adeer waxaana lagu amaanay kuntum khayrun ukhrijat lin nas kuntum khayru ummatun ukhrijat lin nas ana lagu amaanay adeer wax kalena loogu amaanin adeer ina wax wanaagsan isu sheegayn waxa xunna iska reebayn adeer yaana loogu sheegay moogi ina la isku mashquuleeynin oo shibli iska dhaha oo nin walba tiisa la jeedsanana loogu amaanin adeer aayadaas markay ayada leedahay kuntum khayrun ummatun ukhrijat lin nas ma ina anaga ka qurqurxanahay adeer waana laga qurqurxanaan jiray adeer ina anaga ka xoog badannahay oo structure-ka anaga fiican yahay ma adeer waana laga xoog badnaa adeer dada buuraha guriga ka sameeysan jiray adeer ya daloolsan jiray gacantooda inta saas ku kala leexiyana sameeysan jiray adeer marka anaga kuntum khayrun ummatun ukhrijat lin nas marka anaga nala leeyahay waxaana la dhahay waxa isfaraysaan wanaaga xumaantana waa iska reebaysaan nala lahay adeer alxamdulillah astaghfirullah marka dadka fidnada wad oo xumaanta ugu dhaxfaafina oo ciyaalka fasahaadina oo wax walba fasahaadina hadii anaga ka aamusno adeer hadii xaqina ku taagan yihiin aba aaminaya maxay la aamusnaanta waxa la dhahay wax rag loogu mahmaahmay adeer meesha rag iyo dumarba waa ku jiraan alxamdulillah astaghfirullah waxa la aamusnaan xitaa naaga lagu meherina la yiraahday ninkan raali ma ka tahay ma lagu meherina hadii ayada aamus waaba lagu meherina nin dambiile hadii inta la qabta la dhaa dambigaas lagu soo oogay magash hadii asaga aamus waaba lagu qaadaba maxay la aamusnaanta waxa qirashada way adeer marka fidnoolayaasha inta fidnada nagu sheegayaan abiyuuska anaga nagu sheegayaan in anaga dumarkeena abiyuus gareyneen abiyuuskana lagu sheega oo dumarkeena lagu caayna ina xijaabka ayagoo wata adana wasakh sameeysanayaan adeer oo hablaha anagi haweenka anagi lagu caayna ayagoo xijaabka kor ka wad hoosna ina ka wasakhaysan yihiin lagu caayna in culumada anadi la leeyahay maxay aheeday naagaha faraxumeynaya intaas dhan anaga hadii anaga ku aamusno hoosta ka xariiqnay adeer alxamdulillah waa xariiqnay حقيقة كدوغنا أدير تيم برها أصارني أدير الحمد لله الكابتن مصطفى أدير واكو سلام الحمد لله مرك أدير هدي دينك مستان وحيا اسكو أوغاتين أدير واسكو قرتين أدير الحمد لله مرك إنا لغا هدلا لربا مرك سيدا نيغا هايلايت كي كدغاني وغدا غالا مرك أدير الحمد لله
waxaa soo badatay Soomaali haddii annaga dhahay horta cudur xun aan qabnaa daawadiisana la helayn adduunka waxaa lagu mashquulsan yahay gaajada in lala dagaalamo HIV AIDS kala dagaalamo kansar kala dagaalamo laakiin cudur la hilmaama jira adeer oo Soomaali le u gaar ah oo sagara dilooday oo saynisyahanna soo saari karin wax soo saari karana jirin adeer culamaa diinki waxaas ayagana dadka wacyi gelin lahaana aamuseen is aruuriyeen oo ayaga dhanba inta badanba business people u batay adeer alxamdulillah astaghfirullah culumadii waa soo fariisanayaan bes haddii ayaga soo fariistaan bag dhammaan bag ay ku wada jiraan sorry culumadii waa soo fariisanayaan adeer YouTube samaysteen adeer alxamdulillah ma sha Allah alxamdulillah waa fiican tahay adeer YouTube kaas in adiga aad oo culumada adiga ka raadsad laakiin wixii aad meesha ugu gashaba waxa way mar ayaga isku dhadhagan yihiin adeer ayaga isku dhadhagan waaba isku raaracaan ayaga yaab iska raaracaamada horta war loo mahay ayaga iska raarac mid kaas asaga isdifaaca kii culumada adeer alxamdulillah marka ayaga ugu fiican yihiin su'aalo oo waxa ka jawaabayaan adeer oo la leeyahay ninkeyga safariga aade inta ka bixi na kala ila guursade inta ma ku furi kartaaye inta ma ka bixi kartaa ninkeyga salaada ma tukana inta bahalkiya fariisana nin qaad cunaan mi khabi kara waxa samaanta dha waqtigooda lagu dhameeyna adeer ummadina ninkaas la leeyahay ma la furi kara qaada cuna inta ka baxay la leeyahay waxa dhibkan dhan u keenay la maraadina adeer alxamdulillah markaas la leeyahay naagta hiblaayay saan samee in hebelo saan samee kana saan samee yaa adeer maaha meesha waxa naga jiraan cudur xuna nagu jiro quluubta naga dagay in ilaahay qoolkiisa na lagu akhriyo na lagu dul akhriyo oo maalikasna loogu celceliyo oo meel walba lala istaaga ya looga bixi karaa adeer alxamdulillah waa ogahay adeer cawiifa iga saaran qatar waxa way kii kaamaradayda teleefonkeyga kii virus galay ku kala waaye ku kala heestay wixii iga saaran ma kasaay adeer wax lee saaran kii indhahayga taa lama arkaa mareena anaaba inta saxriir isaga arkaa adeer alxamdulillah marka ciyaamada waa jirta alxamdulillah farxaa maxaa yeelay maanta kii teleefonkeeda kaamaradayda fiicneen adeer alxamdulillah marka adeer culumadina waa naga aamuseen cudurkii qabiilka ah heer waxa lagu maraya hadda khaniis lagu difaaca adeer naag xun oo qasiisad ah oo qawaar oo shaydaamad shaydaan duqoobe adeer hataa waxa markii yar yihiin waa la training gareyn karaa adeer waxa markii yar yihiin adeer maxaa yeelay traininga markii asaga yar yahay waa qofka adeer waa la soo training gareyn karaa adeer markii asaga kisto soo qaangaar hatta traininga lagama maarmi kara adeer waa la training gareyn karaa laakiin qofkiiba la rabay inaa wax training gareey oo aqli iyo cilmi iyo wax kasta loo raadsanayo oo ku duqoobi fidna ku duqoobi adeer oo wasakhnimo ku duqoobi oo hadda leejinis iyo dabagaab u soo gashtay adeer madax cirre banaanka u keensaday adeer urays adeer bakti oo bum iyo dhush ku haysa adeer oo naasale balakh oo wiifo noqday saas u wareejina oo bam iyo bum ku haysa adeer ya ka aamusteen idinka dhan adeer alxamdulillah waa ka aamusteen adeer markii hore ka qabashada leheeda qaban weyseen adeer waa ka aamusteen adeer si u soo waday qaniis naasa laha keentay adeer alxamdulillah astaghfiru qaniis leeki naaskiisa hadii adi aragta naagahan wax noo dhaldhalaaba ka naasa waaweena keentay adeer alxamdulillah astaghfiru kii asi u soo wada haddana nagu dhex beertay kii waaba la qabsanay adeer alxamdulillah aziza jamac aniza jamac intii ani adig ku caayday oo adig ku fidnayn oo wix adi sheegays iyo farcaaga aniga galin meesha iga baxadeer adi iyo maama malyuuntaada iyo bumtaada iyo dhushtaada iyo qasiisiinta adiga tihiin ma kasaaya adeer haddii kale haddaba baloo kugu qabana magaca aniisaba hadlayse waxaan oo aniisa jaamac la dhaha ardayda xumeed oo wasakhda oo nijaasada oo duqda xun tababartay waa adeer alxamdulillah adigana meesha adig ku jirto waa lagu soo helaa adeer qabiila khaniisa qabiil ku difaacaysa adeer alxamdulillah waxa adiga sheegay ka mid tahay waa adeer aniisa jaamac mid la dhaha hadda inta soo gashay adeer khaniiskana waa difaaci qabiila ku difaacaysa adeer qasiisada qawaarta ina qabiila ku difaacaysa adeer ayadana qasiisad kala leeyahay adeer alxamdulillah astaghfirullah qasiisad kala leeyahay maxaa yeelay alkhabithatu lilkhabithiina waa adeer waxa xun leeyihiin adeer alxamdulillah maxaa yaayne huuno markii adiga habarta ka dhamo adeer leedahay anima adiga kugu dhamaad mise beejkayga aniga adiga kugu invite gareey adeer alxamdulillah anisa edab yeela inta hadii adi edab ugu jiri karta ku jir hadii kala qasiisiinta ka daba qaylina kulli si la yeela waa aqaana adeer adiga laftigaaga inta ku gala beesha adiga ka imaatay farcaaga keena hadii adi rab edab ku dhagays hadii adi dhagaysan kari dhagaaga duduubay orod meesha dhilooyinka looga sheekayna aad adeer alxamdulillah dad wanaagsan oo qalbigooda wax gala wax looga sheega inta adeer alxamdulillah hadii adiga wax ku gali kari fiya irida ka bax adeer alxamdulillah annaga rabtaa ina shaydaan agteena ku soo difaacda adeer oo qabiil ooga difaacana qurunka iyo qabiilka xabadka ilaabta ka galay ilaahay ka dhaqa hadii ka dhaqmi waayeen annaga allahna ka dhaafiyo adeer annaga inta magac aniisa noola soo baxda adeer
ya wasakh iyo bakti iyo annaga nala soo aadaysa ya haddana beejka annaga noola soo galaysa adeer wanaag waxba iiguma wanaag qofka wanaagsana wax loogu sheegaaniis qofka ma wanaagsan yahay horta asaga fiiri adi qofka haddii wanaagsan yahay adi bax u tag ba wanaag wax ugu soo sheegadi adaaba dumar gabar eedo wanaag bax wax ugu sheegadi haddii kaa yeelays waxa adiga intaas u leedahay waxaa rabtaa in annaga afkana qabato ayadana wasakdeeda wadad dallaalinta ayada soo dirsataa ka mid tahay adi oo dadka ayada ka hadlaaya inaa hoos u dhigtaa rabtaa waxaa leedahay ka dhammow maxaa ku hoos dhigay intaa tahee ka lama raba waxaas adeer kulli in laiskula soo wada jeesta way adeer aniisa dadka adiga gabar yaraa tahay adeer carruurtaadii dhasha ayada hadlaynaysa adeer alxamdulillah haddii adiga caqli leedahay oo goof ahayn adeer oo xabadkaagaba adeer naasaha lee ku wadanin oo caqli kuugu jiro xigmad iyo wax kuugu jiraan adeer carruurtii adi dhasha ayada hadlaynaysa oo wasakad maalintaasaana ka sheekeyn doonta adeer alxamdulillah astaqfirun hadda kii qabiila kuwaalaadi laakiin wixii adi dhasha qabiilkuumaha adeer adigaa dhalay jirkaaga laga soo goyna adeer alxamdulillah astaqfirun haddii adiga maanta wasakh iyo nijaasa iyo munaafiq iyo qasiisad iyo qaniis adiga maanta u damqata oo adi taageerta oo adiga maanta qabiil ahaan ugu damqata wallaahi adigaa ka shallayna maxaa yeelay wax alkhabiithatu lilkhabiithiina aayaddeena qur-aanka been ma sheegaysa adeer xumaan intiiba adiga taageerayso qofkiisa ama qabiil ku taageer ama maxay aheeday cizee haddii adi rabta qofkan waa weyn yahe fircoonba nin oday waa waaweyn adeer waa lacaynaya ilaa haddaa lacaynaa fircoonba shayddaanba waa naga da'weyn adeer shaydaan meeqa milyan sanaa jira adeer waa lacaynaya asagaba maxaa adeer alxamdulillah astaqfirun waxa haddii weyn yahay ma aha inaa laga aamusa oo waxba la dhihi karin oo laga xishoona maaha adeer waxa weynaaba dadka fidneeya adeer wax yaryar dadba ma fidneeyaan adeer saqiirka dambiba ma lahaba adeer alxamdulillah haddii adiga is leedahay qofkan waa weyn yahe saan wax lama dhaha kan weynaaba wax hadlayna adeer alxamdulillah saqiir maxaa hadlayna ehlu janno waayba adeer marka adeer runtaa la rabaa adeer haddii adiga rabto oo wax eray adiga ka hays oo adiga og tahay oo adiga xog nooga hays inta soo gal waa ku soo qabana adeer xogtana nala waraag adeer alxamdulillah laakiin qalad waxaa inaa qof saqajaan oo wasakh oo qaniis iyo qasiisad wada in adiga dhahda ha laga dhammaada yaa lagu mashquulin adiga dhahda shaydaanka ha nugu dhex kuro waay warkaaga ha nugu dhex kuraa noqonaa adeer maama malyuun bam ilaahay ha naga qabta adeer shaydaanul insi waay insiga loo soo diri qaabka ayada u egta haddii adiga aragtana adaaba ka quursana adeer alxamdulillah astaqfirun wax qasiis ah waay adeer wax qasiis ah oo wasakh ah oo qawaar ah waay weliba qasiis duqoowe oo qawaar noqday waay adeer alxamdulillah wax ka dambeeya male tigidkeeda dhanaa gubtay adeer wixii tigid ayada qabtay dhanaa gubtay adeer alxamdulillah carruur ayada dhashay gacan kuma haysa waa ka carareen ayagayaaba ka carare waalidkeeda tii ayada ku dhigtay waa la ogi hooyadeed si ayada u buqdhabaysa u qaraacaysa waxaa noqotay ree aakhiraada noqotay aabbaheed ceebti ayada kala cararaa banaankaasi soomaaliya kula dhintay ciyaalkeedii waxaa dhahday aabbaheeya iga kufsaday in haddana ayada dhahda macallin dugsiya anii korkore oo adigana dhahda ha laga aamuso ha laga dhammaada adeer waxaasoo kale nijaasanimo waay marka adeer in qabiil maanta qabiil dartiisa soomaali haddii annaga nahay oo qaniis u difaacayn oo gaalna u difaacayn oo qasiisadna annaga u difaacayn adeer ciddii igala qayb qaadan kartaa soo gasha waa ladisoo qabana waa la invite garayna adeer dad ninkii rabaa la soo qabana adeer alxamdulillah yaa la soo qabana ha la soo dirsada adeer dadkan ka dhammow iyo hebel ayaa la dhahaa iyo dhaha hanala wadaaga adeer alxamdulillah maama bul iyo bush xalay waxaa arkaya qabiil ilaahay sharaf sii oo sheekh ku jira oo shaydaan ku jira yaa dadaa inta ka soo dhigteen waa idiin mention garaynaa weli ha ka dhacsadaan dadka qabiilkaas iskale majeerteen community ayaa waxaa laga soo dhigtay adeer maxay ahayd beja magaciisa majeerteen community yaa waxaa lagu soo qortay bej magaciisa adeer majeerteen dad sharaf leh oo ahlul cilmi oo ahlul diin oo ahlu wanaag waay adeer alxamdulillah astaqfirun ninka inta magaciisa bej ku soo qorana oo qaniisadaas iyo wasakhdaas ku difaaca adeer dadkiina ka dhacsada qabiilkiina ka dhacsada hadhow waa dhehaysaan qabiilaa dad duucayna qabiil baaha qabiil qaniis difaacay beejkaasaan ku aragnay annaga adeer alxamdulillah runta inaa laisu sheegaa fiican magacii qabiilkii sharafta lahaa qabiilka sharafa leeya adeer alxamdulillah maxaa yeele ilaahba qur-aankeena ku sheega adeer wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum qabiilka inaa sharaf leeyahay ilaahaba noo sheega waa naga dhigay annaga yaaba qabiil naga dhigay adeer alxamdulillah ina akramakum cinda allahi atqaakum aana yidhi haddana kiina ugu sharafta badan kan ilaahay ka cabsanayo waa yidhi marka adeer markii adiga qaniis adiga difaacayso adiga qabiil u difaacaysa qabiilkaas qabiil sharaf le ma adi ka dhigtay marka maya sharaftiisa dhulka la gashay adeer maxaa yeele magacii qabiilkaasaa qaniis ku difaacay markii magaca qabiilka intaad soo qaado
qawaartaas xunoo qasiisada oo bun iyo bushta ku hays adiga ku dhex difaacad qabiilkaaga sharaftiisa ma ilaalisa maya ma ilaalin adeer qabiilkaaga yaa hoos u dhigta adeer runta inaan la isu sheegaa fiican reerka oo magacooda la qaatay oo laga dhigay majeerteen community laga dhigay oo qasiiska iyo qaniisada lagu difaaca bal fiiri ayagoo raba bes inaan reer Somaliland la caytamaan bes dhalinyarada xun oo ka dhacday oo ehlo marqaan oo xataa Soomaaliya joogay oo Jarmal iyo meelahaas xiriq xooti ku jira inaan la caytamaan oo la xafiiltamaan darteed ya qasiisad iyo qaniis ya magaci qabiilkii dhan u korsaareen adeer magaci qabiilkii dhana inta soo qaadeen ya waxa dhaheen inta lagu difaacay alxamdulillah runta ina la isu sheega fiican adeer war qabiilkaaga ma waxa ku difaacaysa qaniis iyo qasiisad aawe culumadi aawe dadkii sharafta laha aawe aqoon-yahanadii dadkii ehlu sharafka aha ehlu ciziga aawe adeer kuwaas inta soo qaad qabiilkaaga ma ku difaaci weyd highland ma ka soo dhigan weysi adeer dadka ma soo hor dhigi weyd adeer alxamdulillah maya runta idin sheegaani dad idinka waxaa jiri idinka tirsan oo idinka idin la dhashay oo u maleysaan inaa qabiil idin la wadaagaan oo gabigood idin soo diray inaa idin gaaleysiyaan adeer magacyadiina qaateen adeer ka dacwooda Facebook wala iska dacwooda adeer beeshkaas qofka iska leh laga dacwooda adeer idinka laakiin waaba u bogaysaanba inaaba media laga hela meel la dhaha majeerteen community habar gidir community mareexaan community in laga hela waaba la u bogaysaanba adeer raxween community meel la dhaha illa sameey waa u bogaysaan waa ku faraxsantiin adeer laakiin dhibaatada qabiilkii iyo reerkii dhan loogu sameeyna hadii idinka ogaan lahaydeen mar hore ka dacwoon lahaydeen adeer alxamdulillah deeqaladan wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaantiin inta assalamu alaykum iisoo qorti waa idin salaam wa alaykum assalaam marka adeer runta ina la isu sheegaa fiican aqligi dadkii ma ka dhamaade iimaankii ma ka dhamaade diin la'aan ma nahaysa waxna hayaba garan lahayn adeer dadkii walaalahay aha meesha lagu hoobana godkan lagu hoobana oo la dhahayaa la isku mashquulin waa la yaabanahay adeer maxaa la isku la hadli laayahay adeer maanta hadii yaa reer hebel ani dhaha inta hadda 80 qof ku jirtay 80 kuna soo galaysa adeer yaa reer hebel hadii ani dhaha adeer alxamdulillah annaka ku joognaa leedaha xabad kali garaaca adeer waxa seef iyo baangad iyo qaaday fargeeta la soo qaadana hadii adeer aragto waa yaabaysa adeer alxamdulillah runta ina la isu sheegaa fiican yaa islaam hadii la dhahana adeer anaga nooma taala la leeyahay maka dacwada hal lageey maka in dacwada lageey loo bes culimada waaweyn iyo mashaayikhda reer maka iyo loo geey madiina la dhaha bes laakiin markii aniga yaa reer hebel aniga dhah qaniis hadii ani ahay hataa waa li soo baxa adeer hadana waxa aad ugu xumahay oo aad uga xumahay hana u maleerina ina aniga dad ku dura aad waxa uga xumahay oo aniga la qarracma wallahi nin halaabe oo qasiis noqday oo alkuluusta noqday oo darbi jiif noqday waxba agtayda kama aha adeer maxaa yeelay waa hal way nin waligiis ba hal le ahaana adeer laakiin markii gabar ayada halaawdo markii gabar halaawdo ummad dhana halaawdo bulsho dhana halaawdo adeer alxamdulillah markii hal gabar naga halaawdo bulsho dhana halaawdo adeer laakiin hal nin markii asaga jokoro naga noqdo asaga ay balaqiisa le jokoro isla noqday adeer alxamdulillah cid wax u dhiibanaysa iyo bulsho kale oo asaga soo saari doono ma jiro adeer laakiin gabadha markii ayada naga halaawdo adeer bulsho dhana naga halaabaysa adeer familiyaal badan dhana naga halaaba adeer marka waxa aad iyo aad uga qaracma adeer dadka nijaasadan oo khaniisiinta oo qasiisiinta in dadka daawana iyo dadka difaacaba dumar u bateen adeer wal ciyaadu billah ilaahay idin kan najee ilaahay idin madoobay qulubtiin ilaahay waxa sanacsi ilaahay qalbigiin waxaas u riyaaq ilaahay kama dhiga waxa bes idin soo jiidana idinka hadii dumar tihiin naagta nina caynaysa nina ku dhagantahay nina tiri baalaha ka rifa laakiin hoosta idin gelis adeer caasinimo dhana hoosta idin gelis ina waalidka ku caasisaana hoosta idin gelis ina culumada ku caasisaana hoosta idin gelis bes waxa idin soo martay ina nin caynaysa idinkana waxa u bogaysaan in nin lala baratama baratankaasa u bogaysaan waxa waa u riyaaqaysaan laakiin waxa ilowdeen adeer nimanka lala baratama oo idinka u riyaaqaysaan aabihiina ku jira walaalkiin macaana ku jira naaga hadda ka hor waxa la dhahay nin boqora waxa qabtay 3 qof dil lagu xukumay markaas naag kaligeed ooynaysa la arkay adeer markaas ay gabadhaas maxaa kaligeed la ooynaysa adeer alxamdulillah la soo qabto gabadhii alla keenay maxaa la ooynaysa la yiraahdo dadkan dhan caadi waaye markaas waxa tiri 3 nin adiga dilays midna waa aabaheeya tiri midna waa walaalkay midna waa ninkayga tiri adeer alxamdulillah markaas la yiraahdo adeer 3dooda yaa lagu sii deynaa la yiraahdo markaas tiri aabahay waa idhalay waana jeclahay waqtigiisina waa soo qaatay annagana waana dhalay
ninkaygana ninna waa helayaa tiri maanta kan haddii la dirin nin kala hera laakiin walaal macaana weligay ma helayaa tiri adiga walaal kala ma helayaa tiri oo aniga walaalkay ah ma helayaa tiri maxaa yeelay aabihiiba waa dila marka walaalki yaa hilmaanteen idinka idinla dhashay oo walaal macaana ah oo protectorkiina ah waxaa hilmaanteen aabihiin macaana hilmaanteen adeer waxaa hilmaanteen your husband ninkaaga yaa hilmaantay adeer alxamdulillah ku dhaxaysa ee adiga si waana ku jirto wax ugu sheeg aniga waxaan u arkaa inay xanuunsan tahay deeqaladan ina cali waa sheegaani dadka difaaca dhan waxaa noqdeen female waxa aniga hadda ka hadlaayna taasa ahayd adeer alxamdulillah female besa difaaca ma u malaynaysaa in aniga fahmi waayo qofkaas inaa qof weyn yahay adeer in qof waayeel ah oo hooyo in ayada tahay qof fahmi waayo in aniga ahay u malaynaysaa adeer oo caqli la'aan iyo cilmi la'aan iyo dadnimo la'aan in aniga haysa ma u malaynaysaa adeer intaasba ima haysa inta adiga garan karta anigaba waa garan karaa adeer laakiin ereyga excuse ka oo waa xanuunsan yahay adeer ma xanuunsana xanuunka ayada qabta waa jira shaydaannimo xanuun la dhaha waayo adeer alxamdulillah shaydaannimo munaafaqnimo jiro la dhahaa qabtaa ayada waa la ogyahay adeer shaydaanba waa xanuunsan yahay adeer waa jiran yahay annagaa noo jiran yahay waxa cadowga ah dhan waa jiran yihiin cadaawadda laftigeedaa jiro ah innahu lakum caduwun mubiin shaydaankana la dhahay cadow waay waa jiran yahay adeer waa xanuunsan yahay iska dhaafa nalama dhihin ammaansiya nalama dhihin meel kasta annaga aragnaa dhahna acuudu billahi min ashaydaani arajiim shaydaanka waa rajbina adeer waa xanuunsan yahay waana maxaa yeele haddii asaga fiyo yahay ma allihiisa ku caasin lahaa ma fiyo adeer marka shiisik haddii adiga maqasho excuse waayo adeer wax kalena uma dhahayna adeer ma xanuunsana adeer wax ayada qabta male adeer saciida hal xabo ayada qabta male haddii ayada xanuunsan tahay isbitaala la geyn lahaa adeer waa la daaweyn lahaa dal horumaraa joogta adeer waa la daaweyn lahaa jirada ayada qabtaa laga daaweyn lahaa adeer qof xanuunsanna intaas energy intaas qalab intaas apartment intaasoo baabuur isuma keeni kara adeer haddii taas waalan tahay ooba xanuunsan tahay jiro ayada qabta soomaali dhanna waa waalan tahay adeer wax fiyooba ma jiro adeer alxamdulillah marka ilaahay ka cabsada qofka noocaas camale xataa inaa idinka u uurdabacdaan xataa waxaa ku faanaysa jidka marka aniga maray dadka waxa iga qabsanayaan dhahday kaalay aniga sawir ila gal adeer sawir ila gal maxaa yeelay top high level yaa laga dhigay adeer alxamdulillah astaghfirullah waxaa loo ogolaaday we let her to grow up inside between us dhaxdeena ina ayada ku grow ku noqoto ku weynaato ku korto oo ku cayisho oo ku qurux badnaato annaga u ogolanay adeer alxamdulillah astaghfirullah runta ina la isu sheegaa fiican saciido haddii adiga ani ii sharaxiis inta soo qabsa adeer ii soo dirso requestigan soo dirso waa ku soo qabana kaamarada ku keena ani kaliya ii sharaxin adi ummadda dhan u sharax adeer xanuunka ayada qabta magaca asaga leeyahay daawada u roon waxa dhan noo sheeg waa awoodnaa waa u qabanaynaa adeer alxamdulillah laakiin xanuunka adiga sheegaysa haddii adiga excuse ooga raadinayso oo jifa ahaan iyo qabiil ahaan ayada kuu xigta gaala iyo qaniisna berriya u doodaysaa dhibka ka imaadana adiga ko ku imaana maxaa yeele aniga ilaahaba ka magan gale haddana waa ka dagaalamaya adeer maxaa la yidhi haddii adiga munkar aragtaan afkiina iyo adinkiina iyo qalbigiina waa la yidhi adeer qalbigana midka daciifka waa la yidhi iimaanka daciifka midka qalbiga qofka laga naco waa adeer daciifnimadaasna ma gaari gacanna kuma gaara mana awoodo mana u jeedi inaa gacan wax uga qabta laakiin kii af la dhahaya ku cadaaba adeer baalaa rifaa lee guraysa ayada timaha laga rifaa adeer alxamdulillah astaghfirullah runtaa la idiin sheega adeer shalay markii qaniiska soo qabanaysa oo idinka life idiin soo gelinaysa adeer 3 4 5 6k yaa ku fiirsanayseen adeer weli ma arkin qof dhaha waa xanuunsan tahay adeer waa xanuunsan tahay duqiyay waa xanuunsan tahay qof dhaha oo bahalkii aad dhaha ma arkin adeer alxamdulillah runtaa inaa la isu sheegaa fiican waxaa igu soo diraysaa meesha oo screenkaaga meel waxaa ku taalla calaamad oo sida contactiga camal oo balaas balaaskaas farta saar adi intaa ka arkaa markaani saciida xasan nuuro screenkaaga fiiri meesha ugu hooseysa oo adiga liveka kaga jirta meel kaamarad ku taallaa jirta adeer kaamaradaas oo balaas dhaxda uga qoranta balaaskeeda taaba adeer marka inaa munkarka la reeba qofka yaa loo dhihin waa xanuunsan yahay excuse waay waa xanuunsan yahay le weligay ma arki si idinka u lehdeen daba casar waa xanuunsan yahay masaajidaa khudba ka akhrina
dad dhanaa tujina idinka nin jirnoole oo dad masaajid khudba u akhrina oo xataa xaanshi ka akhrinaynin ka waran kuwa waafiyooba waa arkaysaa adeer iskriinkaaga fiiri adi meesha ugu hoosaysa fiiri kaamarad iyo waxaa ku taal meel kaamarad calaamad balaas ay ku taallaa jirta adeer fiiri adeer xataa sheekhyaalka fifiyooba waxaa ka akrinaya xaanshiya kusoo qoranayan wixii ayaga rabaan inay akhriyaan daba casarna waa soo istaagaa bes af iyo dabada ilaa gadaala ka qabana adeer si asaga isu soo qurxi isu soo nadiifi oo wax kasta asaga u memeregaray oo kulli asaga u akhrina haddii aad aragto waa yaabi adeer asaga maa waalan mise dadka ku daba tukanaya waalan adeer waa waalan yahay waa waalay haddii adiga maqash walaalkaa laga hela adeer haddii ayada waalan tahay wakaasi car meeshaa joogtaa gaalada ha caysaba adeer inta jid ka fadhiisata gaalada iyo kirishtaanka iyo america iyo ha caysa baxaaba caysa markaasaa la ogaanaya inay ayada waalanta adeer kuma dhacda adeer alxamdulilah astafurlah runta inaa laisu sheegaa fiican car wakaasi gaalada inta u tag waa laidin qarxina kanaa laidin yeela saaraa laidin yeela hadda konton laidin dira inta diyaaradia twin towerska haddana la gelina argagixisa idin keenina car ha dhahda wataasi meesha ha joogto haddii ayada waalanta idinka arka ayado waa waalantahay marka idinka dhahdaan wixii koronto la arkayo madaxa looga dhajina adeer ma waalna marka adeer annagaa waalan adeer annagaa iimaanka anaga daciif noqday adeer qabiilkaa nagala weynaaday adeer alxamdulilah qabiil carabta ma waalantahay markaanis haddii carabta la tujina carabta jinoolayaal miya qofkii arka maa tujin kara marka adeer annagaa qabiilka waxaa nagala weynaaday adeer iimaanka iyo diintiya nagala weynaaday adeer in xataa waa kuu sheegay qabiil dhan magaciis inta la soo qaaday qaniis lagu difaaca si qabiil kale loola xifaaltamo wiilashaas aada uga xuma weliba haddana garci raaleeyahay day ninka oo meesha majeerteen community kusoo qortay oo waxaas meesha ku difaaca wasakde oo ku difaaca gabdho yar yaa usoo gala haddana markaasay leeyihiin mahooyo maryuun ha iska baashaasha maxaa laga rabaa waa gabar laandheeraa laankiina allaha gubo oo wax orda allah idinka geliy laankiina dheer tareen orda allah idinka geliya adeer alxamdulilah laan dheer le dadku waasheen adeer yaa ka laan dheersan tahay soomaali walaalkaa waay adeer qof walba oo soomaali oo islaam ee walaalkaa waay almuslim aqul muslimaa la yidhi adeer muslimka waxaa walaal u alado muslimka kalaa walaal u adeer waxaan oo majeerteen iyo isaaq iyo mariixaan iyo hawiye iyo habar gidir iyo abgaal idinka walaal ka kala dhigateen xaraam calayk adiga kulligiin walaalahay atihiin kiiba muslim ee walaalkay waay adeer alxamdulilah intiba adiga muslim tahay oo adiga soomaali tahay dadka dhan waa iiga sokaysaa adeer alxamdulilah dadka dhanaa iiga sokaysaa jiirkaygaa tahay adeer muslimiinta kale waa iiga sokaysaa xataa oo walaalaha anaga nahay adeer laakiin adigana si adig qabiil kale oo walaalkaale adiga u cays ya qaniis u difaacday adeer ya qasiisad xun oo madaxa soo qaawsatay oo jiinis soo gashatay inta adiga xataa haddii adiga qabiilka ka nacayso waxaa la rabay inaad adiga u tagto madaxa ka goys adiga dhahda qabiilka dhan aba reerka dhan baadaa ceebay inaad dhahdo reerkaaba ceebaysa inaad dhahdaa la rabay adeer adigina markaasaaba dhahday reer hebel baa tee laandheera tee laguguma dhace layskuma kaa dhiririn karee yaaba leedahayba adi alxamdulilah adeero ilaahay ka cabsada laandheeranimo meesha ma taalle iimaan dheeranimo meesha taalle iimaankiina ibar noqde iimaankiina suubsada ilaahay tuuga qoolka alla qaata ilaahay qabiil qurun waay qabiilka raacina kan ugu fiican kan yani iga cabsada waayaa dhehe asaga qaata ilaahay ka cabsada runtaa laydin sheegaa adeer ilaahay ka cabsada asaga dartiisa isu jeclaada isuna naca adeer ilaahay dartiisa isu jeclaada isuna naca waxa qabiilkan waxa weyn idinla noqday oo aniga hadda meeqa shalay isoo caynaysa markaasi adig oo duqdaas le aniga wax yar ka sheegay inta cayn la igu dhigaa waxa aniga u dooda waa caruurtooda waay adeer xaasaskooda waay adeer hooyooyinkooda waay adeer yaa ragaa inta iisoo galaa i caynayaan adeer wax kale iguma cayna adeer waxaa ii cayna in asaga iyo ayada hal qabiil ka wada dhasheen qabiilka aniga adigaaba hal qabiil ka dhalan waa moogtahe adeer ninka aniga i caynayo aniga adigaaba hal qabiil ka dhalan qabiilkeenana soomaaliya la dhahaa waxaana ka nahay muslim islaama ka nahay adeer alxamdulilah inta wanaagsanaa ku xigta intaas qabiil ahaan u raadsa inta kale daraamka ku dar adeer rabishka ku dar adeer rabish ha tirsanin adeer maxaa yeele wasakh adi haddii inta adiga wasakh qaadata adiga dhex istaag wax meeshaas catar iyo barfuun iyo kaama soo raaca adeer wasakh kale le kaa soo raacaysa adeer alxamdulilah runtaa inaa la isu sheegaa fiican qabiiladiini sharafta laha oo magacooda inta idinka beejka soo dhigataan oo idinka qaniiska ku difaacaysaan oo qasiisada ku difaacaysaan
runta haddii idinka idiin sheega maama malyuun waxba idin maaha adeer qof muslin ah oo wanaagsan oo laa ilaaha ila allah muxamada rasuulullah leh dembi waa naga dhaca oo dembiga lamamka la dhaha naga dhaca yaryariiska oo shirkiga ahayn maama malyuun waxba umaaha adeer hal ayada u tahay male adeer alxamdulillah maxaa yeelay isku wadaba kuma jirna adeer alxamdulillah wadada khabiisaadka ku jirta adeer wadada khabiisaadka oo xumeeda ku jirta adeer duca حتى قابك لوغو دعينا كما جوجت ادير الحمد لله maxaa yeelay in allaha bidhallamin lil'abid ilaahi mar horaba adoomadiisa maba dulminin baadii yawm al-ahd wal miqat maalin la dhaha anaga ballan la soo galnay qof walba oo maanta adduunkan ka dhashay islaamnimo ku dhalana adeer alxamdulillah islaamnimo qof islaam ahayn adduunkan kuma dhalana adeer imma waa muslima amma waa kaafira noqona waa ku kufrina ilaaha ku kufrina imma qof muslim ah noqona oo diinta islaamka heesta kuna dhaqan wixii ayada fartayna fartoon adeer hadii adi aragto qof banaanka ka jooga ilaahu isoo hanuuni le bari inay salaad ani bilaaba raba ama bari ina islaamka iska nabadgeliya raba bari ayat quraan ahayd oo suuratul kahfi ku jirto wala taqulana li shay'in inni fa'ilun gadan hadhihin shayna hadhihin gadan waxa la dhahaa daqiiqada hada ugu soo sokeysani hadalkayga kan ku soo xiga la dhahaa xilligaasa sameeyna hadhihin sameey markaas adi taagan tahay sameey توبة ده إلهي أنو قادير موغي قف إلهي هاي سو هنونيه بري صلاة بالله باي بري وحلا قبل الله بن آدم كوا اسكت ضافا دبكو ضئي وحاصلا لمرة بقادير توبة نصوحا إن الله إما تمركز هذيك استاكتوا يا قادير مركز قادير هدي لو دعينا أنا أدعي هل لو دعي دعاء مرة أيضا ريبان تاي مالي ولو دعين كرا محايل دعاء أتليست أيضا كابت بادين إيسا وحال لغا يابا إن أديك أيضا كابت باد مركز أديك أيضا أدعيس هداية إن أديك إلهي كجرد أو أديك إلهي أيضا كامدوبي يابا معقولة هل لو دعاء لا مشكلة دعاء واحد يبقى مالي هذير هدي أيضا كسو وراك سنانيس لكن جد وحاجر اللي سوق دعينا هذير وضد دتك لو دعينا مسارنا هذير الحمد لله رنتينا لسوشي غافي عن مواهب قريشيدا قروح ليدا وات هذا أنا قنيس أداء باستر يهو محاربتها مامدا قرم يهو مواهب قسيسة تهي هذه وانا اوغا هذه كوا او ايادا ardaydeeda tahay adeer alxamdulillah qasiisad markii la caayana qasiisadan waa soo galaysa adeer maxaa yeelay qasiisadtii ugu weyneeda la heesta adeer sheeydaan yaryariiska waa soo galaanaaba ogani adiga laftigaada lagu karbaasha baalasha laga rifa adiga laftigaaga alxamdulillah muwaahib haddana si magac fiican le u qaadanayo munaafiqiinta aragadi muwaahiba qaadatay arig qureeshada qaadatay arig quruxleeya qaadatay arig intii magac ugu fiicneeda qaadanaan haddana kulligood qashin waay hoosa qashin ka dhuuqdeen qalbiga qashin ka noqdeen tigidkooda wada gubte kulli waxaan idinka arkaysaan all street meets waay waxaan hadda muwaahib la dhaha iyo duqdaasa u weyn kaabo way adeer kulli street meets waay habeenkii yaa shan qabo yaa laba qabo waay ay ka dhan waa la raadsanaa adeer kuwa yaa inta soo galayaan aniga wax iga sheegayaan marka adeer alxamdulillah ha maxay qasiiskoodi ugu weynaa businesskoodi soo galay adeer marka in ayada ani hadda qaniisa tahay dhahdo ma bal yaabaa bani alxamdulillah maxaa kula yaaba businesskoodi aba soo galay qof wanaagsan oo wanaagsan qasiisad waxba uma hadir qasiisad wala shay ma qaniis walaalkay ma qasiis walaalkay ma qof xun dhan walaalkay ma hani inta wanaagsan oo Soomaalinimada iyo Islaamnimada ku jirto hatta qabiil qofkii walaalkay ma hani alxamdulillah runta idin sheegani qofkii Islaamnimo iyo Soomaalinimo meeshaas xagga uga baxaadeen wax asaga iyahay malay adeer alxamdulillah astaghfirullah run baa wanaagsan adeer runta ina la isu sheegaa fiican adeer nin raga oo maanta hadda meesha wax iga sheegaa malay adeer muwaahibey qurux leeyaa la dhahay inta la magac kuma qarin kara adeer qasiisada tahay adeer qasiisad qashin ah tahay adeer alxamdulillah magac kuma qarin kara adeer aniga maanta prince hebel hadii ani isu bixi prince ma noqono adeer maskiinka xamaaliga noqono adeer kan leeyahaani king hebel hadii ani maanta isu bixi king ma noqona kan leeyahaani adeer maskiinka xamaaliga leeyahaana adeer alxamdulillah astaghfirullah marka muwaahib qurux leeyay muwaahib qureesheeyay magac hadii aad isku soo qarinays wallahi magac kuma badala ilaahay ka cabs ilaahayga u noqo hoos iyo kor waaba ka qashimoode iimaankaaga le ilaahay ki aakhira le bas ina ka qashimoobi intaas le isku raadi adeer alxamdulillah Abu Bakar Ahmed kuwaas wax kala male caayda ka cabsadaan adeer adi markiin ayaga markii soo fariistaan ina caay leetay bas waxa ayaga sheegaan cayle ina tahay soo moogada hubkooda caay adeer waa la caayna mar damba ma soo hadlaysa anaaba ku og qixi ayada qaxda baloogi ayada igu qabata mar damba lama arka adeer alxamdulillah ana runta ku sheega adeer
caay leeb waay awoodooda caay eh waa la caayna bis maxaa yeele dharbaaxa lama gaara wax aniga la gaara male qur-aan iyo wax galaayana male waa la caayna marka adeer alxamdulillah caaydo dheedheel ha u malayna idinka qur-aankaaba qof lagu caayo walaa tudic kulla hallaafin mahiin camaan fiiri adi nin dhanaa lagu caay saxaabi ah adeer cutulin bacda dalika zaniimin wala dulzino waay ma garatay adi alxamdulillah runtaa inaa laisu sheegaa fiican caay maaha adeertan zayd aadan caay maaha waxaas camal shaydaan tuura lahaa adeer shaydaankaa lagu tuura waa dhaqaaqday hadda waa aragtaa markii ani laba xaba ku tuuri waa dhaqaaqday adeer alxamdulillah marka maanta wax ila soo gala waa laahay adeer wax ii soo gala waa lalaayahay adeer dadkii wax lasoo qabanaaba male adeer intaan ka fiirina haddii dad lasoo invite gareyn kara wax dad ma arka adeer wax dad lasoo qaban kara inta maku arka adeer alxamdulillah mid saaxiibkaya fiirina haddii asaga marka maanta inaan wax badan wadaagna darteeda xataa taleefonkan oo caad kale aniga u qaatay adeer laakiin wax dadkiiba inta wax soo qabsanaa male adeer alxamdulillah marka adeer iska qabta xataa dadkan annaga leenugu qabiil yihiin adeer intaynan hadda inta ku jirta 2 iyo 3 isku qabiil eenuguma jirta adeer dadka annagaa nugu qabiil yihiin adeer magacyadaanadi qabiiladaanadi inta qaateen yaa qaniis lagu difaacaya iyo qasiisada adeer ha laga dacwoodo facebooka looga dacwoon karaa meel walba looga dacwoon karaa adeer ha laga dacwoodo dartiyaqaan daacad soo dirsa haddee waa ku soo qabana adeer dartiyaqaan daacad kuma arkee dartiyaqaan daacad kuma arka adeer adhono wixii aniga u arki lahay dartiyaqaan daacad kuma arka adeer soo dirso waa ku soo qabana dartiyaqaan daacad soo qabso aawe kuma arka adeer soo dirso haddii adiga soo dirsato waa ku soo qabana adeer qof walba oo raba isoo qaban leelaleeyahay wax liima soo dirsana request ha la soo dira adeer kii requestiga ha la soo dira adeer waa idin soo qabana adeer alxamdulillah bin maa saaran waa xiran tahay layidhahe adeer wax ani ka ogahayna male inay bin saaran yahay in kala hataa adeer marka adeer ilaahay ka cabsada ilaahay isaga cabsana ilaahay dartiisa isu jeclaana waa idin soo qaban lahay I don't know what is going on ma aqaan taleefonkana keegi maaha ku kala ka soo gale asagina waa igu xumeynaa adeer alxamdulillah wax aniga meeshaan ka arkaa oo qof ah dad oo invite leeyahay le arkaa bis wax aniga invite gareyn karana maaha adeer waxaan dhan intay ku invite gareynaani marka ilaahay hal isaga cabsada adeer okay hadda arkay adeer hadda arkay adeer hadda arkay sidii la isoo soo qabana ileen qofkaaba lagu dhufana adeer cabdirasaaq wadani soo qabsa adeer cabdirasaaq wadani soo qabsa saadiya hasan adigana waa ku soo qabana ku adeer assalaamu calaykum وعليكم السلام ay soo dhawow adeer soo dhawow دواك يا دواك قلب وناسم wanaagsan haye kii barnaamijku waa la socotay Soomaali aad macaan aad wanaagsan awla soo haye see u aragtaa dadkan fitnada wada oo nijaasada oo qaniisiinta leh oo qasiisiinta leh in laga aamuso oo lagu mashquulin ma aragtaa mise in lala hadlo oo meel isagala soo jeesto horta waa wanaagsan tahay horta aad waa si wanaagsan ku salaamaya sida ay soo casuumtine horta waa ku mahadsan tahay niyo inta badan sanadkan waxaa social media ka socdo gabdho ma aragtay si doonaan u dhaqmayaan wiilal si doonaan u dhaqmayaan marka taas laaligeed niyo horta waxa ku dhilay maadaama ay saas u dhaqmayaan
inaad ku dabadayato ma inaad caysana maaha laakiin hanuunka allah iska leh inaad soo hanuuniso oo micnaha maaragtay inta aad taqaano ilaahay karaamkaada inaad usoo daliilsato oo usoo jeediso micnaha adigu waa ku saxantaa waayo walaalka way hadduu bax ku dhaha micnaha taas micnaheeda u fiirinin waayo hadduu diido micnaha halka erey aa usoo jeedinayso micnaha adaa xaggaaga ajir waayo asagana hadduu diido hortiisa kuwana waa la iska dhaafaa walaalkay aad baad u mahadsan tahay intaas horta nin kasi waay maahay alxamdulillah marka ma u malaynaysaa qofkan qof hal week ka hor bilaabay ma waxaan 3 years 4 years waxaan wadaa adeer waxa markii asaga qofka cusub yahay yaa la dhahaa haddii wax loo sheeg ma u malaynaysaa inaan waxba loo sheegin culumadii la hadashay dadkii wax u sheegay wixii ayada ku dhigtay adigana waa ogtahay anigana waa ogahay qof walba inta ku jirana waa ogi waa la caaytantay xaasaskooda caayse waxaa caayse waalidiintooda caayse sheekhnimadooda caayse xataa qaara dacwo ka furtay marka qofkaas qof hadal u dhima yahay inaa yahay makula tahay adi si wanaagsan aad iyo aad horta inta badan baraha bulshada waxaa kasoo sanadkan kusoo badanayo dad joogo qurbaha oo micnaha soomaali ah dad diinta kirishtaanka qaatay oo soomaali ah dad maaragtay see doonaan u dhaqmayaan oo ayagana soomaali ah micnaha maanta ma aha inaa muqdisho joogto mase gobolada soomaaliya aad joogto micnaha dadku waxay u badan yihiin ayagoo oo micnaha yurub joogaano sidii soomaaliya ugu tageen camal soomaaliya ka tageen qofka marka micnaha ma aha soomaali hadduu ka tago inuu si kirishtaannimo u dhaqmo marka annaga maxaa marka waajibkana saaran annaga laftigeena miidiyaha waa ku jirnaa adeer inaa ayaga dhagaysana bes ma miidiyaha ugu jirnaa oo fidnada ayaga faafinayaan annaga dhagaysano oo ka aamusna ma miidiyaha ugu jirnaa mise miidiyaha ayaga dhinaca ayaga dad kaga fasahadinayaan annagana inaa dadka uga digno inaad soo qaban waa wanaagsan tahay waayo micnaha qofku waxyaaba haddaa ku aragto adiga islaamaa tahay asagana waa islaam micnaha maadaama maaha diinta kirishtaanka haddoo qaad in aad ku fiirsata maaha way wanaagsan tahay aniga qof diin kiristaan qaatay adeer maqaladi nin diin kiristaan qaatay waxbaba nooma dhiminba adeer wax asaga noo dhibe ma laha xataa wixii asaga noo bireeyaba cuni karnaa gabadhiisaba guursan karnaa adeer diin kiristaan haddii qaatay asagaa isdulleeyey qofkaas adeer laakiin qofka fitnada iyo maxay ahayd haweenkii iyo carruurtii iyo dhallinyaradii wixii dhan fitnayna ka waran adi oo wasaqda uga sheekayna oo in raggii lagu caasiyo uga sheekayna in culummada lagu hadal celiyo uga sheekayna qofkaasaa ka daran kan gaaloobay naftiisa la gaaloobay kaas horta micnaha horta waxaa la mataqaanaa dameer faraska waxaa la mataqaanaa horta soomaali inta badan waxay ku mahmaataa dameerka faraska marka la daaqo faras oo ismooda alla mugtaada marka qofka oo micnaha ninka wadaadka aflagaadeenayo kaas horta ilaahana calad kasoo bixinayo marka hore oo nin maanta maaragta islaam eh nin aflagaadiyo calad uma dhinna ninkaas marka waxaa lagaa rabaa bis ee tahay inaa wax walba ku hanuuniso ku baraarujiso qofka intaa ka cilmi badan tahay aa meel walba ugu wanaagsan tahay marka maanta ma aha micnaha horta haddaa la caydinto micnaha qofkaas qalad uu ku fahmaa laakiin muhiimadda waxay tahay bis labada aayad xataa aad taqaano inaa usoo daliiliso inaa maaragtay wax walba la hadasho qofka xataa baraarujiso diinta islaamka farto micnaha qofka maanta aad wax ugu aqli badan tahay horta waxaa la mataqaanaa walaalka intuu kaa weyn kaa caqli badan yahay qofka maanta waa dumar waay waa kontonley intaa maanta ka caqli badan tahay nin rag waa micnaha waa loo baahan yahay inaa baraarujiso inaa maaragtay qofkaas usoo gasho social media dadka dhan tusto eed qaladaadka ay sameynayaan waa inaad bulshada dhan aad tusta waayo qofkaas marka waxaa lagu leeyahay qofkaas qaladkiisa waa ujeednaa waxyaabahu sameynaya qalad marka haddii qofkii qaladkiisa la sheegaya haddii lagu dhaha maxaa ugu mashquulaysa adiga taada ka raaca ka waran markaadi taas qalad waayo jaahilnimo taas jaahilnimo ugu weyn waa qofkaas micnaha ma aha inaa ma aragtay maxay igu mashquulay mashquulkan aad maanta isku qabiil ma tihiin waa ka aamusi kartaa laakiin diinta macaankeeda waxay tahay aafarowsaa micnaha anaga maanta gabar walaashan isqaabisay inaa ka aamusan horta waa arrin fool xun micnaha ayagana horta qof inuu dhaha allow saaxiibkay khadka ka xun waxaa la soo qabanaa shaab qaasim ciid shaab soo qabso shaab ma soo qabsatid marka isoo qabana waa leedahay adeer
سعيدة سوق أداك سوق بتي سعيدة welcome welcome سعيدة qof haddii asaga gaalo asaga diinta islaamka ka bax allihii asaga uuntayaa ku kufriyaadeen haddii xukun islaami jiro oo sida islaamka la isu soo qabanaa isloo soo qabto oo xukunka islaamka lagu qaada qofkaas rajmin waay in la rajmin waay in dhagax lagu dilo waay laakiin annaga xukun islaam ma qaadayna adeer qofkaas camal asaga jisadiisa waxaa tahay inaan dhagax lagu dilo laakiin qofka fidnada wada oo dadka fidnayna oo haddana kugu luqad oo kula ashahaadana oo waliba rabbana laa tuzigh qulubana bacda id hadaytana kufura waxaa ku furaysaa fiiraadi markii ayada akhrinaysa waxaa ku furaysaa hataa qur'aana ku furaysaa adeer markaasa waxaa aflagaadeynaysaa culummadii adeer haweenkiya waxaa u sheegaysaa inaan nimankooda sanka ka duraan sanka haweenkiina ninaaba sanka laga dura haddii la dhahay aabbahoodba inaa ku jira ma oga ninka sanka laga duri rabo walaalkoodba inaa ku jira maba ogaba ninka sanka laga duraa laleeyahy adeer ninka futadaha laga haraantii laleeyahy walaalkeed iyo aabbaheed inaa yihiinba ma oga ayada adeer bes waaba isugu soo aruureenba maam ilaahoon ha naga kaa qaadin alla hooyo baa noo soo baxday kii hooyadooda hilmaameen adeer aabbahooda hilmaameen nijaasadaana hooyo ka wada dhigteena daba kicin adeer allahumma najina gabdhaheena ilaahay ha ka badbaadiyo qoftaas sharta ayada wada shaydaamada ee sharta ayada wada hadda inta aniga intaada ku jire afar miya ma aqaan ama shan naagooda ay dheheen ka leex naagta wari adiga maxaa ka rabtaa naag leewaay waaba ku soo qabtee saciida maxaa u soo qabsan weyse saciida hadda ku soo qabana meesha kaamarada cagaarka taaba hadda marka asaga ku soo dhacay greenka taaba soo galaadi alxamdulillah astaghfirullah halo salaam alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا شيء مع وجهك وقرصن كرتا قبرات تهي لكن هذا الكاغ عادي وين هيا ابو ان شاء الله ثانك يو هيا walaalkay horta waa idin salaamo dhammaan maasha allah sidaa maaragtay aada hadlaysane aad baan horta ugu farxay laakiin toobigaada dhanna waa la socday horta haddaa runta farista kaaga bilaabo wallahi horta ani waxaan joogaa waddanka Mareykanka laakiin waxaan joogaa magaalo iyada u jirto adiga hal saac iyo xoogaa wallahi haddaa runta kuu sheegana ku qabiil miihi waxaan ahay qabiilkay maalin walba cayso haddana waxaan ugu gubanayaa waa gabar walaashay Soomaaliyeed waa hooyaday oo kale waa habaryartay oo kale waa eedaday oo kale runta haddaan kuu sheego waxaan ka shaqeeyaa meelaha oo dadka xanuunsan aan ka shaqeeyaa Soomaaliya markaan joogo waxaan maqli jiray dad waxaa jiro waalidii dhaqanta ah anigoo la yaaban qurbaha markaan arkay waxaa jirto waalida dhaqanta markaa dadka xanuunsan aan la shaqeyso waxyaabo badan aan arkaysaa dad normal oo waxaa arkaysaa aan dhaheeno aan weydiinayo waay dadka intay ka xanuunsan yihiin maxaa dhacay oo kaala arag ah markaasaa lagu sharaxayaa marka walaalkeeyo waxaa anaga Soomaali haddaan nahay dadka xanuunsan waa tuuriyay jirnay dadka xanuunsan waa bahdilnaa until now hadeertaan la joogo wallahi xala markaan fiirsado dad baa isu diraay dad baa isku hambalyeynaya xataa aniga waan ooyay waan ka xanuunsaday waxaan jeclaan lahaa inaan magaaladeeda jooga aad baan u jeclaan lahaa oo maalintii shalay hadda markii la soo gelinayo ay joogtay dukaanka Soomaaliga ah inaan horta aan joogi lahay wallahi maxaa u joogi weysana waan isdhahay ma fahamtay wallahi abo way xanuunsan tahay maama milyuun wallahi walaalkay waxaan kaa fahamsiinayaa inay okay ahayn waxaa kaa fahamsiinaa dad baa wax yar ku waasho horta nolosheeda yaa ka burburta ha nolosheeda ka burburta abo ilmaha ka xanuunsan haddii adiga maanta kood walba haddaad tagto dhakhtar kasta haddii adiga aad tagto qoftaas ma u malaynaya inay waalantahay inaad dadka dhaadhicin karto adiga maya waxaa looga dhaca hadda fiiri ani for example aan kuu sheegaa gabar waxaa jirto oo magaaladan joogto oon joogo oo wallahi aan weli qaraabanahay dadka soo tahriibay oo Liibiya soo maray ahayd fiiri gabadhaas reer bay la joogtay maalin baa guriga reer waxay qabeen tacsi gashaan u tagay gurigi markaan tagay gabadha waan dareemay jikay ku jirto horaan ka fahmay
reerkii gurigaan weydiiyey gabadhaa maxaa ku dhacaa iri maxaa la reerkooga u adeegoosaaba gabadhaa waxba kuma dhicinaa leedhahay gabadhaa way xanuunsan tahaan dhahay naasacaa leedhahay waxay xanuunsan taha ma lehe waa iska aamustay waxay joogto waxay bilooyin kadib gabadhi waxay keentay inay midi qaadato inay banaanyadii istaagto isla markii daktarkii markii la wacay oo loo isbitaalkii loo wacay waxay tiri ma xanuunsana caadiya u hadlee waa la soo diray marka maadaama aad tahay qof ka shaqeeya meelahaas hadda dadka xanuunsan oo experienceigaas xoogaaga ana aadna dheer tahay sharciga Mareykanka marka muxuu ka qabaa qofka noocaas camal haddii dadkiisa intay qabsadaan ay ku wareejiyaan dadka meesha waalwaalan la geeyo wuxuu ka qabanaa waxay u baahan tahay ma isdifaaci karaa maya way hadle dad waxaa jira inta la geeyo isdifaacaan oo dhahayo ma xanuunsan oo la wareysto meesha dadka 74 hours loogu talagalay inaa horta qofka la wareysto laakiin waxay u baahan tahay milyuun hadda kuu sheegaa milyuun waxay u baahan tahay gabar la dhalatay oo u dulqaadan karto oo tir waxay u baahan tahay in la dhaho adigaa jiro adigaa saana wax walba ha abaayo waa saxan tahay runtaa waay inta laga dhaadhiciyo qofka waxay u baahan tahay hadalka dhibka haysta in laga neefiyo u baahan tahay waxay u baahan tahay inaa la dhagaysto inaa la yidhaha saana igu dhacday hadda gaalada markaad tagtid oo meelaha tagtid oo waxa dhahdeed waxaa lagu diraa qof social worker ah waa kaa dhegaysanay maanta dhan inaa ooyaa lagu dhahaa waxa dhan inuu qof ka hadlo war sometimes waxaa lagu leeyahay haddaa qof aa la hadasho weyso meel banaan intaad tagtid qayliyaa lagu dhahaa marka waxay u baahan tahay milyuun abo qof inta la hadlo dhaho adaa saxan waa runta ee tartiib inta u dejiyo abaayna keen dhaho oo maalinba maalin u caga dhigo oo dhakhtarka geeyo oo wallaahi waa arki doontaa maanta iga qoraan ku dhaha walaalkay waxaa arki doontaa milyuun haddii inta dhakhtar la geeyo ayadoo inta soo fariisata dhihi doonto ma ogeen maalintaas xaaladeeda qofkan leader waay aniga igu soo daba faylna kaama yeelayo leader ma social media ku waalata abo maya marka ma u malaynaysaa hadda gabar inay inta u tagto ma u malaynaysaa hadda gabar inta milyuun u tagta ay dhahda adigaa jira adigaa roon intaas hadday dhahda life ila soo gallayba dhihi timaa iska fi maya way soo degay way samaynay waa ogaa way xanuunsan tahay xanuunka hadda wuxuu isku bedeli doonaa hadda gabadhan kuu sheegaayo meesha dadka xanuunsan oo weli waxaa loo gudbiyey jeelka ah habeenada kamid ee guri dhan burburisay siday dadku u dhahayeen way iga daran tahay meeshii dadka caadiga ah intaa laga wadaa meel oo dadka oo saa'idka ah oo jeel ahaa la geeyey oo daawada xataa way diiday America inta taala ku sheega xornimo qofka xanuunsan xataa daawada ma cunaya hadduu dhaho oona loo jeedo inuu wax jijibinayso meelaa lagu xiraabo wax oo dadka familka ah ay qofkiisa dhaqan toosin meel u geysan karaan soo ma jiro maya qofka afkiisa haddoo qofka waxay ku leeyihiin hadduusan adiga oo dad dilaynin ya oo dadkii oo dilaayo waxaanu jijibiyaa sida hadda gabadhaan lagu qabtoo kale aan kuu sheegaayo waa la geynayaa way wadaayaan laakiin maraykanka waxay ku leeyihiin haddaysan dad dilayn ee socoto ee afkeeda ka hadlayso amay ku diloosaa maya faraha ka qaadaa lagu leeyahay wax dhaqan toosina oo family afaarihiisa oo dadkaas loola tegi kara